الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام يا رمانتين ولا لي الميلاد شوكتانبا كليب كان كيكو الرئي موضوعي عنك قهل لي بانكسو علينيا سببتو كي هوري عدكي أيا سماعده أيا عدكي سوساري واي marka waxaan rabaa inaan kaga hadlo mawduuca aan kaga hadlayaa waxa weeye waa kalibyadii hore uun baan daba joogaa ilaahay idamkiisa oo Cabdiraxmaan Nuur bisafriyaad aan ugu magac daray marka walaalayaal wadadaan aan maraya waxay ka mid tahay wadooyinkii aan ku safri jiray balse inaanan horay inii ku soo duubin baan u malaynayaa intaanan marka wadada aanan u gelinin iyo meeshay ka timaado iyo meeshay u socoto waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaali haddaynu nahay walaalayaal waxa layna yiri qaybiyo u tali qabiil baa layna ku kala qaybiyey walaalle hadduu ilaahay waa kuwa diin ahaan baa laynoo kala qaybiyey oo qoloba diin ma ay magac iyo madhab gaara bay la baxday oo layna ku kala qaybiyey dal ahaan baa laynoo kala qaybiyey oo dawlad goboleedle iyo waxaynaan aqoonin baa layna ka dhigay inta layna baabi'iyey oo layna burburiyey maanta marka waxaan arkaa qayb hor leh oo ina ku cusub oo aynaan horay aynaan u aqoonin ama aynaan u arki jirin ayaa ii muuqatay in ay jirto oo layna ku samaynayo qaybtaasi waxay tahay baraha bulshada waxaan ku arkaa in dhaweydba waxaan ku arkayaa in la leeyahay rag iyo dumar in loo kala qaybsan yahay marka waxaan rabaa inaan ragga la hadlo dhowr su'aaloodna aan weydiiyo waxa weeye dumarka sideeda aynu weerarka ku hayno oo aynu waxooda xun sheegayno ama aynu soo saarayno ama aynu ka talinayna miyaanay hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo xaasaskeenni ahayn inagu samiyeynaan ahayn raggii ilaahay uu mas-uulka uga dhigay oo wax laga weydiinahay nin kasta oo Soomaaliya xaqiiq waxa ah in gabar kasta ama haweeney kasta oo Soomaaliyada in wax laga weydiinayo nin kasta oo Soomaali sheegta ha ogaado in dumarka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed mid ka mid ah ama laba ka mid ah ama saddex ka mid ah ama afar ka mid ah ama intay doonaanba ha noqdaan dumarka Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed in wax laga weydiinayo ama waa kuwa uu dhalayo aabba uu yahay ama waa mid uu qabo ama waa hooyadiis ma fahamtay marka miyaynaan ogeyn nin kasta oo Soomaaliya in gabar kasta oo Soomaaliya wax laga weydiinayo inuu mas'uuliyad ka yahay ilaahay xaqii wax laga su'aalayo maxaynu la hortageynaa markaynu xumaantooda sheegno ama aynu group dumar ah iyo u kala qaybsanno group rag ah dumarkan inaga inala dhasheen ama ina dhaleen ama ay qaba inagu marka inaynu group qayb gaara ka yeelno oo aynu waxooda xunna soo saarno waxooda xunna aynu baraha bulshada ku warino mayay bannaan tahay waa ma bannaan aniga kilibada maalmahan dambe aan arkaya waa kiliba aad u fool xun mana ahan wax diinteenna wax ku bannaan ma ahan oo diinteennu ay inoo bannaysay dhaqankeennu wax uu inoo baneeyey ma ahan oo waxaynu dhaqan u lahayn ma ahan hadduu ilaahay waa kuu ron yahay ma ahan sharci islaam iyo mid gaalo mid uu ku bannaan yahay ma jirto in xumaanta qofka bini aadamka ah iska daa rage iska daa dumare ninka ragga xumaanta uu leeyahay baa layna ka reebay walow xitaa uu gaal yahay inaynu xumihiisa aynu inagu hadduusan xumaan ina ku haynin oo uusan colaad ina kula jirinin inaynu nabadgelinna baa ilaahay ina faray
diinteennu waa diin samax ah marka walaalayaal waxaan rabaa inaynu weydiiyo dumarkani miyayna walaalaheen ahayn miyayna waalidkiina dhalay ahayn miyayna xaasaskeenni ahayn miyayn gabdhihii aynu dhalnay aanay ahayn maxay tahay miyaynaan innaguse mas'uul aynaan ka ahayn dalkan iyo dadkan nin kasta oo Soomaaliyehi waa mas'uul wuxuuna mas'uul ka yahay diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa adduun iyo aakhirana waxbaa laga weydiinaya ma dadkii aynu baabi'inay oo qaxinay oo qaar aynu gaalo u dhiibnay qaarna aynu gaalaysiinay innagu iyo diintiiba ka saarnay sababtu waxay tahay hadda waxaynu u gaalaysiinay nin waliba markuu reerkiisii inta qaxiya Yurub geeyey yaa miyaanay sabab miyaadan u noqonin qofkii ama diinta islaamka ka baxay ama hadduu ilaahay waa kuu roon yahay xumaan loo geystay ama gaalaba qaadatay ama hadduu ilaahay waa kuu roon yahay caqliyad xun ba laga dhaadhiciyey oo waxaynaan caado iyo dhaqanaynaan u lahayn la baray miyaynaan inagu aynaan mas-uuliyadda qaadayno layna weydiinayn nin kasta oo Soomaaliyeed reer kasta qoys kasta oo Soomaaliya oo waddanka ka baxay yaa nin Soomaaliya unbaa mas-uulka ahaa oo dayacay ma fahamta kuweenii waddanka joogay oo waddanka jooga hadda waxay doonayaan inay waddankii ka soo baxaan kuwii waddamada kale u qaxay oo horay u qaxay ama Yurub tagay ama Carab tagayna waxay doonayaan inay ka sii baxaan oo ka sii tahriibaan maxay tahay inagu feen dhulkeennii aynu inagu lahayn dhulkii inagu aynu lahayn dalkii alle ina siiyey dadkii dhaqankii wanaagsanaa xoolaheennii dhulkii wada barwaaqada ahaa meeye maxay tahay dhibkaan aynu ka dhammaan la'nahay ninbaa wuxuu yidhi maalin dhexdaasa ninbaa sheekaynayay wuxuu yidhi ninbaa wuxuu arkay buu yidhi laba nin buu dayaxaas baa la tegey buu yidhiyo dayaxaan tegayaa buu yidhi laba nin baan ugu tegey buu yidhi labadii nin oo aan ugu tegey midna hindi buu ahaa midna Soomaali buu ahaa buu yidhi ma garad hindigii baan waxaa yidhi war maxaad meeshaan ka soo doontay waxaan meeshaan ka soo doonay buu yidhi bal baayac mushtari iyo waxbaan ka eegayey buu yidhi halkan bal wax inaan wax meel bakhaar ama dukaan ama wuxuun inaan ka furo maqaayad aye Soomaaligii wuxuu yidhi transit baan ahaayo waxaan rabay inaan meesha transit baan ku maray marka ha fariisanina leena ku akhriyay innaga ha fariisanina leena ku akhriyay dalkeennii dadkeennii waxaa dhibkaasoo dhan geystay waa rag Soomaaliyeed marna qabiil bay ku xisaabtamaan oo wax ku qaybsadeen marna gobolaysi bay keeneen haddana waxay keeneen in dumarkeennii asluubta iyo dhaqanka wanaagsan lahaa in ay layna ku soo ataako oo iyaguna ay guruub noqdaan dumar ah dumarka guruubka dumarka waan ka hadli doonaa mar kale aan ka hadlayaa insha Allah laakiin maanta aan ku la hadlayaa waa tan ragga weey marka walaalayaa innaga mas'uuliyad baa layna saaray rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kama teginin buu yidhi aniga dabaday dhibaato ama mashaakil dabaday ragga uga daran dumarka kama teginin macnuu maaha inay ina laynayaan ama dhibana ku hayaane hadde iyaga hawl weeye hawl baad haysaa mas'uuliyad baa alla kuu dhiibay mas'uuliyadda alla kuu dhiibay waxay tahay inaad dhaqankeedii aad wanaajisid la dhaqankeeda inaad wanaajisid hadduu ilaahay waa kuu roon yahay wax allaale wixii mas'uuliyad alla kaaga dhigayna inaad qaadatid yaa marka maxay tahay guruubaysigan ka socda ama ragga guruub ahaan ragga u ataakaya yaa ama xumihii gabdhaha Soomaaliyeed keenaya baraha bulshada maalin walba soo dhigaya war ilaahay ka baqa ilaahay inay abuurtay ka baqa war ilaahay inay abuurtay ka baqa oo dhibka iska daaya walaalayaal aniga intaasi waa iga waana inay kula jiraa magacan waa inila wadaagaa raggan magaca rag la yiraahdo waa inila wadaaga mas'uuliyaddana waa inila leeyahay oo waxba laga yaabaa mid badan oo anigu aan leeyahay inaan dayacay marka waxa weey ilaahay hayna cafiyo laakiin ilaahay aynu u noqono walaalayaal
gabdhaha Soomaaliyeedna aynu dhowrno oo ilaalino sharaftooda waa sharafteennii ma garato ma jirto nin aanay hooyo soo dhalin soo korinin oo soo tarbiyadayn aanay naaska u soo dhiginin marka ilaahay aynu uga baqno waa mas'uuliyad ina saaran oo ilaahay ina weydiinayo inta markii aan ku daayo arrinkii gurubaysigii aan ku arkay baraha bulshada oo aan u soo noqdo wadadan aan ku safrayaa waa wadada abha ka timaada waxay aadaa maxaayil jeesaan waa loo maraa maka iyo madiina waa loo maraa iyo jidda waa maxaayil baa igu horeysa hadda marka ku soo dhawaada kliibka yar baa rabay inaan idinla wadaago wixii waana aynu isu sheegno idinkuna waajib ini saaran weeye inaad aad rag iyo dumarba inaynu ayna waanisaan qof kastana waano iyo walaalnimo ayaa looga baahan yahay waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh